دمانتين با دوينينا أن كسو غيب قلي مناسبة دنعا وأوه سو دوينتا وسيركا بيرها إيو ورابكا بنتلان marka ugu horeysa munaasabadena caawa waxaan ku bilaabanaa aayadaha quraanka kariimka ah oo uu inoo akhriyo maxamuud awaale falyatafadal sheekh maxamuud awaale sheekh Abu Karne sheekh Abu Karne بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في الغسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتباسوا بالصبر أن صدق الله العظيم لكن أنت إذا قلت معي أن آد بنسوا دوينيا وسير ردا وسير كبيرها أن مدحضة كلو شرفت له أن دمر كينا آد أقر قرحة بدن قيمها يقاين لماذا دمر كسومالي لغوية قاني كم موقته أخيارتك كله وارنتي فرصة سكدي سيقول مرتي مركانو تاسك فائدة سنة أيام وحنا ليهاي وسيرك بيرها سولو أنا جو كهلا يبهذا الله دجالن كقاتك بدنا وسير فريم بانو كفرينا وحنا وضناها كهينا هرمرك أمة الصوماليات هرمرك بنتلان iyo in dhalinyarada Soomaaliyeed ay la tiigsato oo ay la tiran qaado qarniga 12aad qaadkuna wuxuu ku yahay isbaaro hortaala oo wiilkii curado soo kacaba aw halis u yahay inuu qaad cuno arintaas dawladda Puntland inay at least table ka soo saarto oo ama regulation lagu sameeyo ama si kale looga hortagi karo farintaas naga qaad وأنا آمن سنة أنت هالكا فريدا أنا يلا قبته ورما يلا قبتان waxay la tahay marka kugu qaan farintaasi aad baan ku taan ku baanto ku barbaarshay waayo sida baatir aan dhalay baarkaaga firayo beerkayga jiifto buska iyo habaaska iyo boorka ka ilaasho marka wasiirka beerahu uu soo gaaro Britain ina baahdo saaxiib balana ku dhiganaye bilaahi naftayda ay diinta baaxada leh iyo kugu dhaarshay boqorkee hay ciilin beerkow badankayga way gabin هاي عيل بيركو بدك هيجو هاي قبن ودنا هيجو بوديو بغنيان لقا قرن بيواي عركو بشمها شغيو وإنا بتاعدان بيقولوا العيل كيو سيدا دات كبالة أن كل أنت وعن أول عشان دماتين بدلويننا سيدا هبصميدا هناك إياه فنات لو سو قيب لي مناسبة دا صولو وين توسير كبيرها إياه ورابك إنجنير محمود حاجي صلاح هاي وعسول ليس بس قارت بريتان عاوة برشا كل ميسان إياه بلس حواليدي هاي ان marka ugu horeysaan oo ku hadlaya gudiga qaban qaabada iyo qorsheynta munaasabadan waa jaaliyada Puntland ee UK gaar ahaan guruxdii Puntland iyo hablihii qaranka waxa ay ku leeyihiin iyaga gudoon marka hore salaan guud saac iyo wanaag badan sababad iyo beerka iyo saableyda oo faaseedahayga dhamaasad riigay laabta lixaadkayga iyo xooga xubnahayga iyo dhiiga kuwa dheefta u qaada dhamaantood mid ku dhehanaana dhaawac lahayn oo dhaliil aan ka ilaashay dhamaantood inta joogta laboodkood dhadiga dhaqso soo gudbiyeen gudoon wacan saxada wasiir mar labaad rogan cis waxaan u maaniyaa dadka gaagaaban bay indaashaday barnaamijka caawa iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay waxa inoo falanqeyn doona oo ka hadli doona saaxiibkay Axmed Maxamuud Cabdalla waqtigana fali tafadal saaxiibkay tigano السلام عليكم ورحمة الله وبركاته habeen wanaagsan dhamaantiinba waxaan ku faraxsanahay caawa inaad barnaamijkan nagala soo qayb gashaan oo loogu talagalay in maaragtay lagu soo dhaweeyo wasiirka beeraha iyo waraabka Maxamuud Xaaji Saalax waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba ku soo gudbanaynaa salaankaaga timi jaaliyada Puntland iyo jaaliyada Soomaaliyeed caawa halkan Soomaaliya oo dhan baa fadhida oo ka soo qayb gashay inay ku soo dhaweeyaan London waxaan mar labaad u mahad celinayaa dadkiina ka soo qayb galay barnaamijka muhiimadiisu waxa weeye jaaliyada Puntland guud ahaan gaar ahaan gabdhaha reer Puntland ayaa qayb weyn ka qaatay barnaamijkan ma aha barnaamij Puntland kaliya ku kooban saan idin sheegay barnaamijkani waa Soomaaliya oo dhan maadaama Puntland ay Soomaaliya ka mid tahay waxa la isla gartay inay dadka dhami ay halkan yimaadaan ay wasiirka ay sarkaan
marka waxaan dib soo dhaweynaynaa mar labaad barnaamijkan waxaanuna ka cudur daaranaynaa maaragtay haddii uu waqtigu dib u dhacay iyo maaragtay dileedka yar yimi mar labaad waxaan ku celinayaa Sahal oo ah badweyn isagaana barnaamijka halka ka daadihin doona Sahal ku soo dhawo mar labaad aniga ku hadlaaya soo dhaweynta wasiirka magaca wasiirku waxa uu leeyahay iyo gudooma salaanay hankaygiyo halbowlaha wadnaha iyo hanaqa iyo beerkuba hagaag uga shaqeeyeen habsamaan ku dheeheen lagu horshidiinto inta ay horkacayso inta joogta halkaan iyo habla soo fadhiye ka soo jooda hareertow aniga iyo wasiirkuba waan idin hibaynay naga hoy salaanta hamogaanin ana huba habeenkan wixii Allah haysan naga helaysan caawa looma kala harin dhaadheerka iyo gagaabka gabdhaha iyo wiilasha kulliba mudane wasiir waxaanu jecelahay caawa si kastoo farxad ku dheehan tahay inaan kugu soo dhaweyno qaybta saxaafadda waa Somali Channel waa saaxiibkaygan hareertayda midigta taagan oo isagana arki doontaan in guddiga qabanqaabada hablihii barnaamijkan isku soo dubariday balaankeen hortiina hadda waa qaar ka mid ah marka ugu horeysa waxa uu yeerayaa Xaawo Axmed Shire waa Xaawo Matoto sidoo kale waxaan u yeerayaa Muxubba Cismaan Guuleed hamogaanin Nadiifo Ali Umar ma magna uga weydiyaana Diyaana waa Muna Ahmed Abdallah habla yahow watiin iyo waduxaaga lagu dhalay habla yahow waleyl iyo waligooda raacsanay habla yahow wax garadka habla yahow wax qabadka maxal aawaran leed xaway thank you amaanta dumarka amaanta laga ma badiyo odayada ka tagayaan haweenka aad looma amaano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin waa idin salaamayaa salaan kale iyo laaba caawa oo ah habeen aad iyo aad u qurux badan walaalihii Soomaaliyeed intoodii badnayd intii muxtarimka ahayd aan ku qiyaasi karo caawa meesha noo fadhidaa sheekadu ma aha Puntland oo kaliya waa Soomaali baan leeyahay Soomaali ha noolaato walaalahay goobta waa ku wada dhannahay asahaatee caawa xafladatan quruxda iyo qiimaha badan waxaan u soo agaasinay hadaanu nahay jaaliyada Puntland wiilal iyo gabdho aan kala soocnayn odayaal iyo islaamo iyo dhalaamadoodii ay dhaleen dhamaan waa ku idilnahay waxaanu leenahay wasiiradayada sharafta qiimaha iyo qaayaha badanow kalgacaltooyo aan la soo koobi karin naga gudooma wasiirkii kale waa naga maqan yahay oo hadeertaan ayuu telefoon ugu la soo hadlay uuna naga cududaartay waxaase nala jooga wasiirkii beeraha magac laga miskiin ma ahe yuu yahay waa Maxamuud Saalax Bridge Kolo magac laga miskiin ma aha waa wasiirka beeraha Puntland xaqiiqdii waxaan dhihi karaa waa xubin aad iyo aad agtayada qaali uga ah hadaanu nahay reer Puntlandna noo qabatay wax aanu ku faani karno la iskama faanee wax lagu faani karo oo la taaban karo ayuu Maxamuud Puntland ka qabtay waxaana cadeyn kara aniga iyo intii ila mid ka ahayd ee Puntland tagtay ee beeraha Puntland lagu cusumay ee cuntadii quruxda badnayd iyo orgiyadii la dubay jeerjeerkii beerta dhexdeeda lagu siiyay iyo cambihii iyo babaygii saytuunkii iyo mooskii oo aan ka dhicin halmaan hadal kuma jiro haddaan u soo noqdo koonfur waagi hore anigu koonfur baan ku koray ciyaal kulaj baan ahaa dhalintii kacaanka afgooyaan ahaa aabahay waa siyaad hooyaday waa Oktoobar hase ahaatee waxaan u malayn jiray inaysan dhulkayga aysan waxba ka bixin xaqiiqdii ilma igu soo istaagtay markaan arkay garawa dhexdeedii beer hoosteed dirin la ii dhigay inaan cambe iyo babaay iyo moos iyo saytuun aan gacantayda ku goosanayo filimkiina aad live u daawan doontaan aan caawa halkaa aan ka cunay waxaan dhihi karaa dhulka Soomaaliya ma kala dhaco meel kastana wuxuu leeyahay miro macaan oo la taaban karo oo la guran karo baan leeyahay waxa weeyaan waxaan halka kan madaxdayadii qiimaha badnayd dhammaan ummadda Soomaaliyeed aan uga diraynaa salaan aad iyo aad important u ah waxaan halka kan salaan kaliya laaba uga diraynaa madaxweynaha yaga Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ma kala dhacaane waa ku xigeenkiisa Cabdisamed Cali Shire iyo dhammaan
dowladda Puntland oo dhan ilaa iyo kan ugu hooseeyo shaqaale ka ah shicibka Puntland dowladdu waxba ma noqoteen hooska maanta aanu harsanayna ee ah askarta Puntland reer Puntland waxa ogaataan hadaa dal iyo dibadba joogtaan hooska aad maanta harsanaysaan ee quruxda badan inay mas'uul ka yihiin Puntland ha noolaato Puntland waxay ku abtirsataa oo madaxweynaha iyagu ilaa iyo shicibka iyagu ilaa iyo kan noogu yar ay maanta ku midaysan yihiin Soomaali inay yihiin Soomaalina wax noqoto xaqiiqdii taariikhdu waxbay qortaa waxa weeye waa hadal aan la inkiraynin waxa weeyaan Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Faroole iyo dawladda uu hogaaminayaa waxay ku abtirsadaan Soomaali inay wax noqoto oo ay midowdo aniguna waxaan leeyahay waxaan ahay gabar Soomaaliyeed caaw halka waxaan uga jeedaa gabdha aad iyo aad aan u jeclahay iyo wiilal Soomaali ah oo reer koonfur ah xubbi iyo jacayl ay u qabaan Maxamuud iyo Puntland inay ku yimaadeen Soomaalina waa wada dhalatay waxna ma kala aha waa ilma adeer ilma abti ilma eedo ilma ayeeyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa Muqdisho nuurka ka soo baxay mid siyaada inuu noqdo ilaa rays Casayr ilaa rays Gamboon inaanu isku duubnaano qalbiga la isku furo baby. waayahay garcadiyo gurboodka ay gaboolaya gashaan dumar bulshadiina golahan waaba ku kulantay gudoon iyo salaam wacan wali waxaynu dhexmaaxaynaa barnaamijyadii loogu talagalay soo dhaweynta wasiirka beeraha iyo waraabka Puntland oo habeenka caawa goobtan ka soconaya markan iyo haatan waxaan u yeerayaa Maryan Maxamed Jimcaale Maryan ahay مريم أحسن يعني أفتحن سوماليات ويه إن آد بنو فرح سنين هبين كعاوة نقل قيب قابته مناسبة صودو وين توسير كبيرها إيو ورابك إن وهبين كعاوة قوب تنقصون مريم ما حد كور الله هبين كعاوة كسلو بسم الله الرحمن الرحيم وزير كبيرها دولة قبلات كبودلان مرت شرف تعاو فرح بدن wiilasha iyo gabdhaha saxaafadda wariyaha oo aad ii qanciyay intiina waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan caawa farxadno inaan halkan ku soo dhaweeyno wasiirka beeraha Puntland Mudane Maxamuud waxaan ku leenahay welcome to London wasiirka beeraha Puntland horta idinkana waa dhashan anagana waa dhalnay ninku horta waa shirko waa Soomaaliya iyo Puntland u qaybsamaa anagu waa inaan isnaqaano hore aan soo baran xamar baan isla joogno bishii hore marka waa labada dhinaceen iyo dhinac marka labada dawladood baa arinta dhan buu isku wadaayo alxamdulillah aadan ugu faraxsanahay wax qabadkiisa iyo shaqadiisa waxaan ku leenahay soo dhawow welcome to London howlaha aad wadid oo faraha badan oo inta ku aragtaba ay ku faraxsan tahay ilaahay waxaan leenahay hore u wado Soomaaliya hadii wax laga qabto Puntland iyo hadii laga qabto Hargeysa iyo hadii laga qabto Kismaayo intaba waa Soomaaliya Soomaali baa leh waxaan leenahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dawladda Puntland ayadana aad iyo aadan ugu mahadcelinaynaa sida ay uga shaqeyso siday Soomaaliya u istaagi lahayd siday hore ugu socon lahayd siday u shaqeyn lahayd annaga waa ognahay waxa jiro aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaa waxaan leeyahay haday iyada wax diidan tahay maanta albaabada furmaa ma furmi lahayn wax qabadka taaganna ma taagnaan lahayn taasaan aniga isleeyahay laakiin dhaga fudeedkeeda wax qabadkeeda gogol dhigi ku dhasho beeraha yaqiinay marka Puntland ay haduu idin tagay tacabki wuxuu idin sameeyna mooski alaabada iyo waxaad hesheen xawma toote ay ku faraxda jawhar u ka bartay haduu Puntland ku dhalan lahaa ma arki lahayn baqeyrkan marka laga dhigo wasiirka beerahana waa la xulay sababta qof waligiis badhoobay iska joogo hawsh yaqiinaya maaragta la helo waa ku faraxsanahay in marka xaawo oo maas kugu soo dhaweeyo
ووحوين تصيقال كعيو بيد بي النقال برعيا بربري أرقعي صبر وقتال برميو ضليو بورهي سنك بلدك قلقدود يا بلد وين يا بكل بولا برتي يا جو هربال عاد بيرهي وعناي بنادر قدي سيو برلمان كسر بو ألك بلاو يا مركو بلشيد بادا بلي قرحوني قريو هولي دلقو بقسادا بدو انت كسما يمي حشو نفلو باقو إلا يا بلد حق وديهن صار بحذي فديدك ودم ناس بروا خذوهم باهي لقا قون بدو قلقلا نوبي يالكو بالمران برفنا كدعي نين هوادن وبيلتاعي إلا أبانغو بشر هاي ميل بروا قتال بسين كانو دها إنو هو باسكو ناقا دحبوحو بنديرا لتاقا عالحانكي لصوب بنديقو الله نحريص الصهو مالي أقوى البابا الله نحريص الصهو مالي أقوى البابا والله أمي الله أرنو دعا رجنا كلا قيسكور الله كيال ومدى الصومال اسكوا بين النقدان انت ناني بلا من تيغو درا كدايا بدلان كدايا كدايا بدلان كدايا كدايا بدلان كدايا اقبه طبعا وزير والبوي ماذا وهو كتجا دردارا وسلامنتهين waxaa sharaf ii ah inaan caawa ka soo qayb galno casuumaadan quruxda badan ee loo sameeyey wasiirka beeraha iyo waraabka
runtii waxaan u malaynayaa sideedaba waxaa la yidhaahda dowladnimada inay ugu weyn tahay waxa loogu magac daray tacab soo saarka marka laga hadlayo beeraha waxaa muhiim ah in ay kaalin mug leh ay ka cayaarayso kor u qaadinta dhaqaalaha dadka beeralayda iyo kalluumaysatada sidoodaba waa dadka mudan in si gooniya loo xanaaneeyo maadaama ay ku mashquulsan yihiin wax soo saarka marka maadaama wasiirka uu yahay nin professional ah xagga beeraha ama hab sare ugu sameeyey waxbarashada beeraha ka shaqeeyey waayo aragnimo u leh wuxuu muujiyey in meel allaala meeshii biyo iyo qorrax laga heli karo in wax allaala wax kasta laga soo saari karo sidaas awgeed waxaan ugu hambalyeynayaa oo aan jeclahay mar iyo laba iyo saddexba in kaalinta uu ka cayaaray wax soo saarka labadaraad leh dowlad goboleedka Puntland in ay aad iyo aad u ballaaran tahay waxaan u malaynayaa Puntland wax u gaar ah baa jiro markii laga reebo mooska iyo cambaha iyo saytuunka oo ku caanbaxay meelaha webiyada u badan laakiin waxay leeyihiin khayraad kale oo tiro badan sida timirta oo door shariifa ka cayaari karto xagga kor u qaadinta dhaqaalaha waxay leeyihiin beeyada iyo qumbaha iyo wixii kale la halmaano marka waxaan rajaynaynaa in arrinta hadda socoto iyo howlkarka lagu jiro in ay noo noqoto mid waxtar u leh Puntlandna wixii hadda ka dambeeyaysan uga baahan in meel kale looga keeno khayraadka beeraha waa mahadsantihiin هذا يوم ما سيها إنجنير عناية دكتور عناية هذا يوم ما سيها يدم بدعي وحقول ماله وحن إمك يهات نودي بيا سوء ريكوبا وغير هذا إنجنير جامع علي جامع إنجنير كوحي سوكا يدم بيسواجي أن جامعة إسرائيل جنجرني أن أرضي إسرائيل هين ما أنتي إن أن ما ركتي أن inaan telefoon isku maqalna maahay umeeshi u yimaado sharaf weyn ayay maanta ii tahay waxaan kale oo aan caawa si gaar ah aan doonayaa ummadda Soomaaliyeed oo halkan isugu timay inaan ku baraarujiyo qiimaha ay leedahay qofka wadanka wax ku soo bartay oo aqoon-yahanka ah marka uu ku soo noqdo wadankiisa waxyaabaha badan uu qaban karo anigu Puntland waan joogay weligay isma oranaynin Puntland ayaa wax ka soo baxaya xamar ayaan ku soo koray waxaan u maleynayay kaliya in loo baahan yahay inay xamar kaliya wax ka soo baxaan laakiin ninkii arrinkaas aaminay oo dhab ka dhigay wuxuu ahaa injineerka waana ku mahadsan yahay arrinka midda labaad oo aan aniga caawa aan bulshada halkan isugu timi waxaan jeclahay inay dhagaha ii raariciyaan waxa weeye wadankeeni jiilka cusub oo soo koraya wuxuu u qaybsamaa jiil halkan yimi oo wadankan wax ku barsay oo fursad u helay iyo jiil wadankii jooga oo waxbarashadii wadanka aanan waxbarasho qiimo leh oo aad tayo u leh aanan haysan marka su'aasha halkan aan doonayo caawa inaan ku baraarujiyo waxa weeyaan jiilkan halkan jooga luqadii Soomaaliyeed ma yaqaanaan waxaad arkaysaan in badan ardaydii ilmaheennii halkan fursadda wax u bartay haddii ayan luqadii Soomaaliyeed ayan aqoonayn ma noqon karaan wadankeenii sida injineerka oo kalena wadankii wax ma tari karaan asaga iyo ninka cadaanka oo halkan wax ku bartay isku mid ayay u noqonayaan الله يعيسك dadku waa inay u soo jeedsadaan barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم إلهي با محادث كله إما شاعة وهالك كان اسكوغو نمد حفلة تنقالي
sida fiican loo soo agaasimay gabdhaha walaalaheenna reer Puntland ay soo agaasimeen magac Soomaaliyeedna ku soo agaasimeen lagu soo dhaweynayo wasiirka beeraha walaalaheenna Puntland waxaan leenahay mudana wasiir jaaliyadii reer Puntland iyo jaaliyadii Soomaaliyeed oo caawa kugu soo dhaweysay London welcome to London ku soo dhawaaw waxaa intaa dheeriya oo anigu markaan hadlayo kuma hadlayo magac gobol kuma hadlayo magac qaasa laakiin waxaan ku hadlayaa magaca Soomaaliyeed anigoo ku hadlayo xisbiga mideynta ummadda Soomaaliyeed Somali Unification Party waxaana kugu soo dhaweynayaa magaca xisbiga cid kasta oo danaha Soomaaliya u taagan ama inay Soomaaliya wax u qabata doonayso hadday gobol tahay iyo hadday degmo tahay ku soo dhawaaw magaca Soomaaliyeed aad ayuu mahadsan yahay mas'uul sare oo yiri Soomaaliya dhankeedii dhawaaq farax la mooyee dhiilo kama sugaaye habeenka caawa waxaan filayaa dadkii cadcaddaa iyo dadkii madmadooba inaan la kulanteen waayahay waxaa la soo gaaray guntii iyo gabagabadii barnaamijka udigeenna talisaa go'aankii ay keenaan udigeenna talisaa go'aankii ay keenaan haddaan garabka lala qabaan oo lala agiraan dhigin haddaan garabka lala qabaan oo lala agiraan dhigin oo goolkay dhaliyaan geeskaale u laadan oo goolkay dhaliyaan geeskaale u laada waxaan marnay gabagabadii ayaan soo gaaray barnaamijka hase yeeshee intaanan u gudbin waxaan u yeerayaa guddoomiyaha miidiyada waa injineer caabi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka hore waxaan salaamahayaa gabdhihii qiimaha badnaa oo sharafta badnaa oo xafladan qiimaha badan noo soo qabanqaabiyey hadday yihiin gabdhihii Soomaaliyeed iyo hadday yihiin gabdhihii jaaliyadda Puntland inta kadib wali waxaan ku dhex jirnaa aan filayaa damaashaadkii iyo xafladii loo sameeyay wasiirka beeraha iyo waraabka injineer Maxamuud Xaaji Saalax injineer Maxamuud Xaaji Faarax haddaan taariikh idinka siiyo injineerku horta laba goobood oo taariikh leh ayuu ka soo jeedaa waa marka hore injineerku wuxuu ku dhashay magaalada Jowhar oo ah runtii magaalada Soomaaliya qiimo ku leh xagga wax soo saarka beeraha iyo warshadaha waxa kale oo uu ka soo jeedaa wasiirka gobol aad u qiimo badan oo bari la yiraahdo degmo kamid ah oo la yiraahdo Caluula qayb kamid ah Bareeda waa idinku caawa idinku horeysa umalaya Bareeda ma aha tii Poland ma aha Holland ma aha Bareeda waa deegaanka uu ka yimid wasiirka waxayna caan ku tahay wax soo saarka xagga kalluumaysiga waxayna caan kale ku soo tahay waxa ku yaala warshadii ugu weyneed oo la yiraahdo Nakfish oo kalluunka lagu kaydiyo Soomaalina saddex meel bay kaga taalaa waxay kaga taalaa Berbera waxay kaga taalaa Boosaaso iyo waxay kaga taalaa Bareeda marka kelmadda Bareeda taariikh weyn ayay leedahay dadka reer Puntland waa yaqaanaa library waxa laga sameeyay doonaa museum weyn meeshii dadka reer Puntland oo ka yimaadeen oo dhanba Bareeda la yiraahdaa odagii uu ku soo degay inta kadib waxaan mar labaad salaamahayaa wasiirka iyo inkastoo aan rabin in la hormariyo laakiin salaantii waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha jaaliyadda UK Professor Cabdiqaadir Jabriil suu asagana ugu soo dhaweeyo wasiirka aad baan u mahadsantahay waqtiga ciriiri ah awadiis
بسم الله الرحمن الرحيم عادي aad baan ugu mahadnaqaynaa xafladda aad u fiican oo caawa loo diyaariyey wasiirka beeraha iyo waraabka injineer maxamuud xaaji saalax aad iyo aad bay muhiim u tahay ama aad iyo aad bay u fiican tahay shaaliyadda Soomaaliyeed halkan joogta oo dhan inay caawa diyaar u yihiin in injineer maxamuud lagu soo dhaweeyo magaalada London waa xaflad kulay hadal aad u fara badan loogama baahna laakiin waxaan qiyaasayaa dhowr shay oo na soo haya in laga hadlo waxyaabaha hadda imaan doona waxa ka mid ah jaaliyadda Puntland gaar ahaan waxa laga rabi doonaa workshopyo mid muhiim ah wuxuu ka dhacayaa magaalada Leicester mid kalena London dhexdeedu ka dhacaya hadal aad u fara badan meesha kama dhahayno laakiin jaaliyadda wixii kale oo fariinaya si gaar ah uga hadli doonaa waxaan halkan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka injineer maxamuud xaaji saalax tafadal بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan odayaasha dhalinyarada waxgaradka haweenka dhammaan iyadoo aan kala socnayn jaaliyadda Soomaaliyeed UK waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka labaad waxaad garan karaysaan qiimaha iyo sharafta iyo qadarinta aad iga mudan tihiin darteed waa aniga ka soo degay halkaa si aan idiin qiimeeyo caawa aad baan idinkaga mahad celinayaa waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba uga mahad celiyo ciddii isku mashquulisay in ay xafladatan caawa dhacdo hadduu rabbi raalli ka noqdana waxaanu isugu imaan doonnaa marka Agoos la dhaafo Soomaaliya oo mid ah oo meel u wada jeedo waxaa laga bixi doonaa xaqiiqdii inkastoo aan dib rabo inaan uga sheekeeyo waxqabadkii wasaaradda beeraha ee Puntland wixii ay qabatay inta ay jirtay waxay tahay wasaarad cusub wasaaradda xaqiiqdii inta ay jirtay markii loo barbar dhigo waxa ay qabatayna runtii xaqiiqdii waxaan jeclaan lahaa caawa inaad ku daawataan indhihiinna laakiin technical issue baan u malaynayaa inuu jiro oo suurtagelin waayey inaad daawataan waa idiin soo qaaday movie ama film idin tusinaya waxqabadka wasaaradda beeraha ee Puntland ay gaartay haddii ay wasaaradda waxqabadkeeda ay wasaaradda beeraha ee Puntland gaartay waxa xaqiiqdii aan aaminsanahay oo aan deeply u aaminsanahay inay tahay horumar ay gaareen Soomaaliya waxaad arkaysaan jirkii nagu yaala haddii cididaas allaha ka dhigay ay ku xanuunto waxaad dareemaysaa jirkoo dhan inuu ku xanuuno Soomaaliya waa sidaas oo kale haddii meel ka mid ah Soomaaliya ay dhibaato ka jirto ama xumaani ka jirto waxa qofka islaamka ee Soomaaliga dhabka ah uu dareemayaa in la fahanteedu ay taabanayso xanuunka sidaas ah marka Soomaaliya waa mid maamulkuse waa mid jira dawladda Puntland waxa ay ka mid tahay Soomaaliya waa tan u xaqlinaysa oo u taagan habeen iyo maalin mar uun in la helo dawlad Soomaaliyeed oo caalan taagan dawladda waxa xaqiiqa ah oo aan ognahay in dawladda juhdi badan ay gelisay ee dhaqaale badan gelisay in sida aad ka warqabtaan Garowe 1 Garowe 2 iyo gaalkacyaba shirar isdaba joog ah oo aynu muujinay international community-ga in Soomaaliya ay heshiin karto iyadoo aan dibadda lagu soo heshiin ay gudaha ku heshiin karto xaqiiqdii waxay noqotay arrin la arkay kuna bixin qarashaad malaayiin dollar ah oo dibadda loo aado taa waxaa sameysay Puntland waana ku mahadsan tahay waana mid ay sii wadi doonto waana riyadeeda inay gaarto in Soomaaliya uu loo taago inay noqoto dawlad rasmi ah oo la aqoonsan yahay halka haddaan kaga gudbo
waxaan mar labaad idin xasuusinayaa inaan ka xumahay ma soo koobi karo waxa ay wasaaradaydu qabatay ee beeraha marka loo eego inta ay jirtay waxaanse aad u jeclaan lahaa inaad aragtaan farsamo darteed bayna arrintaasi ku dhacday aad baan uga xumahay balse waxaan isku dayayaa bal inta shakhsiyan aan ka xasuusto bal inaan idiin soo gudbiyo kadibna waxaan diyaar u ahay oo aan halkan u taaganahay inaad i weydiisaan wixii aad is leedihiin allay lahe idinka maqan tahay ama mugdi baa idinkaga jire diyaar baan u ahay inaan idinka bixiyo wasaaraddu beeruhu waxay asaasan tahay muddo 3 sano iyo bar ah aniguna waxaan joogaa muddo 1 sano iyo bar ah reasonka wasaaradda aan u tagayna waxay ahayd base of qualificationkayga iyo selectionka ama fishinka uu madaxweynaha Puntland uu fiishgareynayay aqoon-yahanka Puntland inuu dib ugu soo noqdo waddankiisa si uu wax ugu qabto dalka iyo dadkaba waxaa la yaab lahayd xaqiiqdii markaan idiin sheego anigoo North America jooga shaqaysanayo in laygu yidhi waa kuu baahannahay ma imaanaysaa oo waddankaaga muu shaqaynaysaa laakiin be careful lacagi ma jirto waxaan prefer gareeyey in aan waddankayga haddii aysan mushaar xataa aan qaadanaynin aan free ugu shaqeeyo waxaan u barmaasgelay taasaan ugu tagay waana xaqiiqdii midda i geysay Puntland ee anigu shakhsiyan i geysay inaan dib ugu noqdo dalkaygii sidaan dalka iyo dadka wax ugu qabto arrintaa iyada ah moral weyn baan u hayay xaqiiqdii haddana moralkaa ka sii weyn baan u hayaa waxaana aaminsanahay haddee nin walba markii gurigiisu wax ka bilaabay guriga goorta xaaqato baa kan kalena isku daydaa inaa xaqdide Soomaaliya dhankeeda kale inaan u soo wareegi doono insha Allah hadduu rabbi raadi ka noqdo waxaan idiin sheegayaa wasaaraddu waxyaabo badan bay la soo kulantay dhibaatooyin badan bay la soo kulantay laakiin waxaan aaminsanahay shakhsi kasta oo bini aadam ahay haddii uu decision ku gaaro ama go'aan ku gaaro in uu waxaasi qabtaa inuu ku guulaysanayo xaqiiqdii waa hadduu ka daacad yahay hadduu shakhsiga soo istaagay oo uu mas'uuliyadda qaaday oo yiri dalkii iyo dadkii baan u shaqaynayaa oo ay taasina ka tahay mid dhab ah waxaan aaminsanahay waxay doontaba ahaatee cid hor istaagi kartaa inaysan jirin maanta waxaa taa marqaati ka ah Puntland inay leedahay dhul beereed baaxad leh oo ay ka baxaan cambo babaay muus liin qudaarta soo baqara waxaan idiin sheegayaa inaan sharaabka Puntland laga caba uu badan yahay cambaha uu badan yahay saytuunka dibaddana looga keenay waxaan idiin sheegayaa markaan fiirisid oo aanu sameynay indajin ama research aanu sameynay waxaynu ogaanay Puntland waxa kaliya ee soo gala ee ka yimaada waliba soo dhaafa dhanka gaalkacyo inay yihiin liinta bambeelmada oo iyaduba aan badnayn cambaha iyo muuska inta kale qorshaha ay dawladdu samaysay iyo siyaasadda dawladda oo markeedii horeba ku fadhisay horumarinta beeraha ee Puntland ayaa waxay suurta gelisay horumarka inta leeg in ay gaarto maaha mid shakhsiyadeed maaha mid wasiir ku kooban maaha mid ku kooban wasiir ku xigeen DG iyo shaqaalaha wasaaradda balse waa mid ku kooban oo hormuud u yahay madaxweynaha Puntland Dr. Rahman waxaan idiin sheegayaa waxay xasuusiseen goortii sidaas la yiraahdo waxa la oran jiray bulsho waa ku soo barbaaray markaanu aragnay xawliga ay ku socoto wasaaradda markaynu aragnay xawliga wasaaradda ay ku socoto ayaanu waxaanu marka hore bilowgaanu ka bilownay waxay ahayd wax loo yaqaano wacyigelin
boqolkiiba wasaaraddu waxa ay ku guulaysatay boqolkiiba 80 wacyigelin taa waxaa kuu muuqata cid kasta oo reer Puntland ahi ama oday ha noqdo ama islaan ha noqoto albaabkeesu waxdu taagan tahay walaal ma dhow beer baan rabaa markaanu taas aragnay oo aanu tiri koobnay ayaanu waxaanu bilaabnay qorshooyin fara badan oo ay ka mid tahay sidii ku dhaqankii dawladda hore ee Maxamed Siyaad Barre oo ahayd in qofka beerta leh uusan u lahayn dhulahaan laakiin uu leeyahay ku dhaqan beereed oo 50 sano ah taa iyadana ah waa wadnaa hadduu rabbi raalli ka noqdo waana ku guulaysanaynaa waxaanu bilaabnay mashaariicyo badan kuwa aynu hadda wadno kuwa miiska inoo saaran oo naga sugaya kaliya inaan siixno iyo kuwa soo socda waxaanu aad iskugu taxallujinnay maadaama Puntland ay tahay mid u gooni ah oo haybad ilaahay u siiyey waxa loo yaqaano timirta iyo beeyada taa iyada waxaanu bilaabnay mashaariic fara badan maalinka maanta caawa idinla hadlayo waxaa neersiga ku xaraysan Puntland ilaa iyo 12,000 oo geed oo ah nooca cusub ee timirta ah oo ku baxa muddo 2 sannadood ah dhererkooduna uu leeyahay ilaa intaas waxaanu xasuusanahay kuwii hore in dhererkoodu ahaa ilaa iyo 30 feet waxaad ogtahay in technology-ga laga tagay haddana Puntland ay ku mashquulsan tahay xaqiiqdii baan idin sheegayaa dhanka timirta inaan dibadda looga keenin waxaanu isku dayaynaa waxaan u malaynayaa soonta ina soo haysa waxaan inoo qorshaysan reer Puntland hadday ka batana waa sii fiirin doonaa laakiin reer Puntland inay ku afuraan timir bacaysan oo calanka Puntland ku yaala taas waa xaqiiq weeye waa marag ma doonto cid kasta oo rabta inay xaqiiqda ogaato ayaa ogaan karto oo wici karto meel kasta oo Puntland ka mid ah waxaynu test garaynay arrinta iyadana filimkii ku jirtaa last year bishii 9aad baanu test garaynay inay suurtagal tahay haddana xoogaanu saarnay waxa inala shaqeeyay arrinta oo nala waday NGO international NGO ayaa arrinta inala waday oo aan wada shaqeynay waxaanu ku guuleysanay inaanu bisha aynu ku jirno 7aad iyo 8aad ba la soo saaro Puntland ay noqoto mid timirta looga afuro ay tahay mid local ah oo ku qoran calanka Puntland dhinacana calanka Soomaaliyeed baa kaga qoran waxaanu bilawnay inaanu sameeyno intaanu miiska soo fariisano waxaanu arkaynaa mar walba drought-ku soo noqonayo waxaanu arkaynaa abaaruhu waxaanu ka qeynaynaa abaar cilada kaliya ayna haysataa Puntland marka la soo qaado waa biyaha Puntland waa ciidda ugu wanaagsan ee waxbeerashada Soomaaliya taa waxay ku taallaa indaajina la sameeyay waxa laga yaabaa dadka qaarkii inay yiraahdaan way labada webi ciid ahaan haddii la fiiyo more fertilizer waxa ah Puntland dibta haysataa waxa weeyaan waxa ku badan little bit salt iyo cusbada yar ku badan iyo waxa haysata biyo la'aan see looga bixi karaa abaar baa dhacayso xoolihii bay laynaysaa dadkii bay laynaysaa beerihii baa dhabe waxaanu ku fikirnay aan u fariisanay miis inaanu bal roobka ilaahay ina siiyey ee ku dhammaanaya badda aynu u jahayno inay ka faa'iidaystaan xoolaha dadka iyo beerahaba aanu halkaa ka samayno biyo qabatimo markii la maqlo arrinta iyada ah waxaa la yiraahdaa diiga ama dam labadaba qolada Talyaaniga soo bartay iyo qolada Ingiriiska waxa maskaxdu imaanaysaa inay tahay very expensive wax aad iyo aad qaali u ah annagu ma sameynayno dam aynu ka dhalino electric dam waxaynu sameynaynaa annagu biyo qabasho biyaha iska socda ee macdanta dhulka la tagaya buhurana ka sameynayo faayilna ku dhamaanaya badda inaynu celino si looga faa'iideysto dalka uga faa'iideystaan xoolaha beeraha iyo dadka abaarta soo noqonaysana aysan noqon mid soo noqoto looga badbaado taa iyada waxaanu dhamaysanay hay'ado fara badan
waxaan u diray martiqaad aan arrintaa ka wada hadlay dhammaan hay-adaha badankooda waa ka soo jawaabeen haddeer waxaan ku soo maray Nairobi waxay igu yiraahdeen waa bilaabaynaa sonnootaagan sugaynaa inaanu arrintaasi ama mashruucaasi bilaawno taayada insha Allah waa ku guuleysan doonaa inay abaaraha iska soo daba noqonayo ku dhacaya Puntland inay at least haddaysan dhicinba ay noqoto kuwa yaraada oo aan effect weyn gaarsiinin dadka iyo dalka iyo xoolahaba haddaan idhaahdo wasaaraddu waxaasay qabanaysaa ama waxaasay qabatay ama waxaasay caawo dhan meesha ka kici mayno balse waxaan jeclahay in wixii afkaar ah wixii fikrada ah aad ii dhiibaysaan dabcan waxaan u malaynayaa fikradda anigu iga maqan inay walaalahii ku jirto midda idinka maqanna dabcan anigu jirto marka haddaa diyaar baan u ahay wixii afkaar ay dhiibaysaan laakiin hal mid baan rabaa inaan idinkala dardaarmo Puntland hadday dhutinayso waxay u dhutinaysaa runtaan idiin sheegaya diasporaha dibadda haddaydan midoobin haddaydan isku kalsoonaanin haddaydan mid noqon haddaydan ka fiirin targetka oodan lahayn strategic fog waxaan u malaynayaa wax weyn meeshaasi kama qabsoomayaan haddaa aragteen xaqiiqdii Puntland wax badan bay qabatay 3 sano iyo bar وعبد الرحمن مدحوينها كأها حقيقي واحد بدن الله تابان كرو وأن لينكري كرن بيقبتي تاسنا مرقاتي وحكا شخصيات كا دبدها كنول وح مرقاتي كا عد والبوجودها كنول حدان ليس حقيرين سوماليا دانو نوان نقالنا لكن وحينو لا إنهاي أنه وحنو ديارو نهاي كدولة دهان دليل يس دليل تاس باهور مر لغو غاري كرا وانا خير كويا لبونتلاند markaanu soo fariisano golaha wasiirada waxaan idinka sugaynaa anagoo ka gaar ahaan ka dawlad ahaan ka wasiir ahaan aan gudbinayaa bal in uu la abuuro xafiis isku xira dadka dibadda jooga iyo dawladda Puntland taa iyadana qayb weyn ka qaadanaysaa laakiin waa mid lagu soo dhacday in la abuuro arinta iyada ah waxaan kaloo idin sheegayaa haddii aad haysaan wax alla wixii su'aal ah waxba la gambanina anigu waa okay baan ahay haddii aad iga weydiinaysaan dhanka beeraha haddii aad meel kale ila galaysaan inta ma sha Allah alxamdulillah waxaan ku faraxsanahay inaan idinkaga jawaabo wixii mugdi ah oo xagaa ka jira السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن وسيركو كلن فرح لويان هبين كامل ويه ان مدن وسيركو waxaanu ka abaal marinaynaa habeenka caawa ah waxyaabihii aad soo qabatay waxyaabaha habeenka caawa aan ugu talagalay inaan halkan kugu guddoonsiino ama kugu abaal marino horay waxaa loo siiyey qof walba ma kasban madaxweynaha dowlad goboleedka dowladda Puntland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud madaxweyne Faroole iyo wasiirka maaliyadda ee Puntland waxa tahay wasiirkii labaad oo habeenka caawa isagu markaas ku guuleysto abaal marinada marka ugu horeysa aanu yaro mama Diana Soomaaliya dhankeedii waa farax la mooye dhile kama sugaaye Diana kusudu and wasiirka beeraha is my brother is my really brother has my handle right handy وبحياة لقدونسينايا لكن إن وحني كعدسنايا إن سؤالها كديسان وداليا هاي وعدسي ريكوايستي and وحني كبريايا وبحياة جرا certificate Nobel Prize يودمان وحيرنا إيجا دقيستان إن ير إذنكو إيجا راليا شعبيغا صوماليا إيجو تمت يوبيان ريديو البولي خالف الشيخيان هاي
hayb wadaagnayo halawayga dunidan galo heer saranahaye hadafkayaga sugantuwa hawsarko kalaye gabaygana halkan raadin jiray caawabaan helayo hambalyabaan u dirayaa Puntland heesaan xulayo ee hogaamiye cabdiraxmaanaya huray naftiisiyo hanadada xukuma reer Puntland وهرماريين محمود هليي جيسياتاي وسير لوها وياها يوينات هناتي بيرها وسير هبانتي ويانو هبانتي بسلطان أركيو بقالك هوسكيسو هاتو في يدو وحي ورينيان وبدلان هوداني حتى أنا أبحي بالقدون سينيا ubax baal casuus loo wada cagaariyo canabka soo baxay ciida ingiriiska iyo London cirifyadeedan caawa kugu casuumaynaa gabdhaha London oo dhan salaan gaara iyo Suuriya naga guddoonaya sacaadati wasiir al-saraaciya hambalyo congratulation mabruuk muhubbo ويان وهمبليو بلدا دمن نوبلدا برايسكيو بلد بالغو خيري برسينا والغو ريدي وسيركي بيرها تاي يا بريسكولو همبليو يا كالقعل ونغا هانتي waayahay wali waxaan bartamaha kaga jiraa abaalmarinada habeenka caawa loogu tala galay mudanaha wasiirka beeraha iyo waraabka markan iyo haatanna waxaan u yeerayaa Fuusiya Umar Yare isi ayaduna markaasi ugu doosan بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ku hadlaaya bulshaweynta Soomaaliyeed magaceeda anigoo ku hadlaaya bulshada reer Puntland anigoo ku hadlaaya dhammaan mas'uuliyiinta madaxweynaha Cabdiraxmaan Faroole dhammaan magacooda waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadweynaha aad iyo aad waqtigooda qaaliga noogu soo lumiyay oo noogu soo qayb galay xafladan qaaliga ah oo aan ku martigelinay wasiirkeena qaaliga ah injineer Maxamuud Saalax Xaaj Saalax barishkalo waxaan leenahay jaale wasiir welcome ku soo dhawow London naga hanti raamtaysay shahada sharafteena waad mutaysatay wasiirka beeraha waa mutaystay magaciisa ha jiro aad iyo aad haddana waxaa wasiirka u imaanayo hareeraha ka istaagaya gabdhihii Soomaaliyeed